ardayga maanta muxiibadiisu marinta weeye marka minhaajka lay micnayaan mililca maskax fayowbaan cilmi ka maxday maalaya midha bislaadan sida mareerka muudsada ardayga maanta muxiibadiisu marinta weeye marka minhaajka lay micnayaan mililca maskax fayowbaan cilmi ka maxday maalaya midha bislaadan sida mareerka muudsada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكو سو دوادا سيتو أكاديمي iyo barnaamijka hubsahankaaga barnaamijka hubsahankaaga waa barnaamij aan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan dhalinyarada oo hadda ka soo baxaysa dugsiga sare iyo dhalinyarada sidoo kale bachelorka dhameynaysa raba inay masterka waxyaabaha ay ku diyaariyaan ama muhiimadda ay takhasuskooda ka dhiganayaan aan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan sidoo kale waxa ugu talagalnay inay ku soo bandhigno ilaha shaqo ay leedahay kuliyadaas oo qofkaas baranayo waxaan ku soo gudbi doonaa kuliyad kasta oo macquul ah oo laga barto jaamacadaha wuxuu u socon doonaa barnaamijkan qaab ah inaan casuuno dadka kuliyadaas bartay ama hadda barta oo ku dhex jira kuliyadan iyo kuwa dhameeyay sidoo kale wuxuuna noqon doonaa barnaamij taxana ah intii karankeena oo ku soo gudbi doonaa kuliyadaha dhan sidoo kale barnaamijkan waxa ugu talagalnay inuu u noqdo habraac ama meel ay ka duulaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro u baahan in loo soo bandhigo intaysan maadadan dhexgelin haddii hadhowbeeto aad dhexgashid waxa kugu adkaanaysa inaad ayadoo waqti ka lumay qarash ka lumay sidii aad hadhowbeeto aad uga soo laaba lahayd maadadaas ayaa kugu adkaanaysa marka mustaqbalkaaga inaad go'aan sax ah ka gaartid waxay ku xiran tahay inaad taqaanid hadafkaada inaad u socotid marka insha Allah barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij aan ugu talagalnay intii karankeena aan ku soo gudbino macluumaadkaas oo hore in kula soo wadaagnay maanta waxaan ku casuunay barnaamijka laba departmenti oo inta badan isku dhow laakiin kala qaadan farqina u dhaxeeyo waxaan ku casuunay department of ETE iyo department EEE faculty of EEE waa faculty ku cusub wadankeena sidoo kale ETE waa faculty muhiimadiisu ay badan tahay aan ognahay waxyaabaha wadanka ka qabto laba faculty waxaan in kala saari doonaa asxaabta aan ku casuunay barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa asxaabta igala qayb qaadanaysa barnaamijka aad iyo aad ay u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad iga aqbasheen inaad dhalinyarada Soomaaliyeed la wadaagtaan khibradiina iyo aqoontiina waa loo baahan yahay in oo dhalinyarada Soomaaliyeed loo gudbiyo wax kasta oo aqoon ah haddii aan anaga wax isgaarsiin waxay noqonaysaa in qof kasta uu meeshiisa ku rafaado marka ku soo dhawaada adinko maasan qof kasta magaciisa oo saddexan bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ma ba'd magacay waa Umar Ahmed Xasan bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa la yiraahdaa Mukhtaar Caawil Xirsi walaal tan waa farxad bay tahay inaan halkan idin kala soo qayb galo magacayguna waa Cabbaas Saciid Cabdisalaam bismillaah magacaygu waa Naciimo Sleebaan aad iyo mahadsantihiin Umar Mukhtaar Cabbaas iyo Naciimo su'aasha ugu horeysa oo aan barnaamijka ku soo gudbinayno waxa waaye qof kasta taariikh waxbarashadeedkiisa oo kooban ina weydiinaya Umar ayaan ka bilaabaya bismillaah horta aniga waxaan ku dhashay kuna barbaaray degmada lagu magacaabo Qable ku taal gobolka Hiiraan waxaan dugsiga hoose dhexe sare ku soo qaatay Mercy Primary Secondary School oo ku yaala degmada Qable waxaan halkaan imid Bangladesh horaantii dabaaqadii sanadkii 2014 September waxaan halkaan ka bilaabay jaamacadda Daffodil Faculty of Engineering Department of ETE oo loo magacaabo Electronic and Telecommunication Engineering waa electronic iyo xiriirka isgaarsiinta waxaan alxamdulillah waxaan dhameeyay pagekayda sanadkii 2018kii dabaaqadiisii waxaan haddana heerka labaad waxbarashada ka dhigtaa isla jaamacadda Daffodil isla Faculty of Electronic and Telecommunication Engineering bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan su'aasha u guda galo waxbarashadii oo kooban dugsigii hoose iyo kii dhaxa waxaan ku qaatay iskuulka yaala Hargeysa oo la yiraahdo Sheekh Madar dugsigii sarena waxaan ku qaatay iskuul isna Hargeysa ku yaala la yiraahdo maxay Nuruddin Secondary School markaan secondary dhameeyay waxaan u gudbay jaamacad
waxaan laba semester soo dhigtay jaamacad u taalla Hargeysa oo la yiraahdo jaamacadda Hargeysa kadib markan labadaas semester aan dhignay baa muxuu ahaayay markan adoo waxyaabo badan aan eegay waxaan jeclaystay inaan muxuu ahaayay aan aqoonta si kordhiyo kadib baan u soo hayaamay Bangladesh waxaan ka bilaabay faculty-ga Triple-ga Electrical Electronic Engineering waxaan ku jiraa gabagabadii degree-gan ku jira waxbarashadeedii asaasiga ahayd iyo tii dhexe iyo tii sare guud ahaantood waxaan ku soo qaatay magaalada Boosaaso gaar ahaan iskuulka Imaam Nawawi Boosaaso halkaasoo markaan soo afmeeray waxbarashadeedii dugsiga sareeto sida uu yahay systemka dalku markaan soo afmeeray waxbarashadeedii dugsiga sare waxaan u soo hayaamay wadanka Bangladesh kadibna waxaan familiar la noqday oo ku biiray jaamacadda Dhaka International University faculty-ga Science and Engineering department-ga Electricity Telecommunication Engineering oo aan hadda wali ku guda jiro rajeynayna insha Allah dhawaan inaan soo afmeeri doono waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe waxaan ku bilaabay iskuul la yiraahdo Sheekh Yuusuf oo ku yaala magaalada Burco high school-kiina waxaan ka baxay dugsiga la yiraahdo isagana Sheekh Bashir Secondary School isna Burco Somaliland ku yaala inta kadib waxbarashadeedii bachelor-kayga waxaan ku soo dhigtay jaamacadda Golis University department branch-keeda Hargeysa inta 2017 waxaan dhamaystay waxbarashadeedii batch-ka waxbarashadeedii heerka labaad waxaan ka soo hayaamay wadanka Bangladesh waxaana ka bilaabay jaamacadda Dartmouth International University Department of Electric and Telecommunication Engineering su-aasha labaad oo aynan weydiinayo waxaa waaye maadaama aad labadaas faculty ama labadaas department aad ka socotiin qof kasta waxaan weydiin doonaa sababta ku dhalisay markuu bilaabayay department-gan qof kasta wuxuu leeyahay fikrad u gooni ah qof kasta wuxuu leeyahay hadaf u gooni ah marka qof kasta waxaan weydiinayaa hadafka ku dhaliyay inuu doorto department-gan ama kuliyaddan uu doorto سواء كنت دورتي كلية Telecom Engineering أما Electronic and Telecommunication Engineering سيدا ودا وقسنتين أدون كمان أنت حقوق الشغاية الدنيا ما أنت Telecom الآن مسؤولين قفل بما أنت هو استعمال Telecom سياول لكن أنا غير مركز لفيري مركز أول إنتاج بلا مكور وحياة بدنا أركي جري أو Telecom لكن أنا قوينا كمدة وحكمدة ما أنت هرام Telecom وحالة عصرية 1G 2G 2G هذا أول استعمال جدي ومحوها وعد يا داتا للاستعمال جدي ما تجري مع فيديو ياها كدي من جنرال ده وهير قليل وحالها ل 3G كدي 4G سويت 3G حكسو كردي واحد بدن حكسو كردي إنه جيجا بايت كي استعماله إياه إنه حكسو كردي لايف ستريمينج فيديو ستريمينج كدي 4G هذا وحال عصرين يا أو شغادة إن بدن هذا شغادة هواي صارتي 4G 5G هو ده كسنتهن هالكي فيلم لو سدجنا 8 سكند marka sida loo sameeyo wicitaanka for example sida loo sameeyo wicitaanka maanta dad doonaysa inaad wax caadid Telecom dadka in second loo waca laakiin waxay soo martaa process dheer waxyaabo badan ma soo koobi karno Telecom maanta adduunkan ku dhisan oo for example hadda qoladan aviation-ka qolan aad ay isticmaalaan internet-ka oo hadda muxuu Telecom abalkii hore aviation ma isticmaal laakiin sanadahan dab way isticmaalaan marka hadda for example waxa sii kordhayba qofka fursada uu ka heli karo shaqada Telecom marka barta faculty-gan hore u sheegay Electrical Electronic Engineering laba qodob unbaa oran karaa way sababeen in aan igu dhaliyay inaan muxuu faculty-ga barto qodobka koowaad markaan ku jiray dugsiga ama secondary-ga ama high school-kii waxaan aad u xiisan jiray laba maado oo kamid ah muxuu ahay maadooyinkii lagu qaadan jiray secondary-ga oo kala ahaa mathematics-ka iyo physics-ka labada maadana waxay foundation u yihiin oo muxuu ahay oo basic u yihiin faculty-ga Science and Engineering haduu yahay civil haduu yahay mechanical haduu yahay electrical marka kaas waa qodob koowaad loo karaayo anoo xiiseynay labada maado ayaa muxuu ahay yaa muhiimad noqday sidoo kale waxa la oran karaaba inta badan anu shakhsiyan waxaan kuma fiicini shayga la akhriska badan iyo joogtada badan marka waxaba taasina waxay sabab kartaa in muxuu ay tahay mid ka iga caawiso in muxuu ahay faculty-ga barto labada maadana saan hore sheegay waa laba maado oo la taxalluqa calculation iyo muxuu ahay xisaabo kaasoo mid qodob labaad ba jiro isna oo igu dhaliyay in muxuu ahay aan faculty-ga aan barto kaasina wuxuu yahay wadankeenu wayna wada ognahay meesha aynu electricity-ga saynu ku helno iyo meesha aynu ka helno aad baa lagu dhibay taasina waxay sababtay in muxuu ahay aan rajeeyo oo niyada geliyo in marun ay noqono wadamada ugu electricity-ga jaban leh
sourceka ay ka helayaan noqdo source la mid ah kuwa caalamka iminka tusaale ahaan electricity-ga aynu isticmaalno waddankeennii waxa weeye meel power plant warshad weyn oo power plant oo sida caalamka oo laga saaro electricity ma jirto waxaan ku shaqeynaa waxa weeye waa in magaalada dhexdeedii laga sameeyo meel substation laftigiisana qofku muxuu ahaa ama qofka samaysanaya uu soo iibsado transformer weyn iyo hal generator oo weyn oo muxuu ahaa intaas oo megawatt qaadaya kadib wuxuu ku shaqeynaa waxa weeye waa diesel weey ama waa petrol dieselka iyo petrolka meesha ay dhaqaalaheeni kaga jiraan inagoo wadan soo kori ay nahay waa mushkiladeed weey marka qodobadaasina waxay kuwii nagu dhaliyeen isbedel mar lagu sameeyo caalamka la jaan qaado oo power stationada iyo meelaha aanay dabka laga keenayo electricity kuwa caalamka la mid ah inaanu bal maruun aan gaano ayaan jeclaa marka intaas labada qodob yaa muxuu ay ugu muhiimsano muxuu ay igu dhaliyeen muxuu faculty aan ku soo biro maasadin waa su'aal wanaagsan xaqiiqatan doorashada qofka kuliyada uu ku biirayo markuu ka baxo secondary ama college levelka oo loo diyaarinayo inuu qofku noqdo mid u diyaarsan inuu ku biiro jaamacad waxay adduunka ka tahay wax muhiim ah laakiin geyiga Soomaalida guud ahaan marka laga tago meelo yar oo fara ku tirisa waa arin aad u dhib badan waana mid kamid ah marxaladaha ugu adag ee qofka ardayga ay u waajaho sida adduunka standardka ee wax looga barta qofka ardayga marka uu ka soo baxo standard 4 or 5 or 6 waxa loo diyaariyaa qofku in lagu jiheeyo waxa uu jecel yahay si bari ka maalin waqti badan isagoo uusan ka lumin oo isla markaa waqti u saari karo waxa uu rabo ama uu hiigsanayo taasi waxay keentaa in wadamadan horumaray badi ay ardaydooda age aad u horeeya ama early ageska ay kaga baxaan waxyaabaha iyagu jecel yihiin kadibna uu qofkii isagoo oo haya aqoontii iyo awoodii iyo rabitaankii dhalinyaranimo saddexdaba ay u midaysan yihiin inuu hore ka soo galo suuqa noqdana mid dalkii iyo dalkiiba u faa'iideyn kara inaga gaabkaas way nagu jira oo waxa laga yaabaa qofku wuxuu soo maraa waddo aad u dheer isagoo aan wali wax badan oo faa'iido aan ahayn waxa laga yaabaa 12 ilaa 13 sano wax lagu soo lumiyaa waxbarasho dugsi hoose dhexe sare kadibna qofku maalinta uu ka baxo secondarygiisa ama dugsigiisa sare waa mid aan wali u diyaarsanayn inuu dooran karo kuliyada uu rabo markaas inuu isagu barto tan marka waxay caqabad ku noqotaa badi ardayda Soomaalida ah wax raba inay ku biiraan jaamacadaha iyadoo ku keento qofku inuu 3 ilaa 4 kuliyadood laga yaabo inuu sanadkiisa koowaad u kala bedesho ama laga yaabo qaarkood 2-3 sano markay ku dhex jiraan kuliyadii inay arkaan wixii ay ka rabeen inaysan ku dhex jirin kadibna uu door bido inuu kuliyad kale ku biiro sidaas caqabadaha ardayda Soomaalida haysta kuwa la mid ah baa qof walba Soomaaliya haystay aniguna waxaan kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee duruufahaas haysteen laakiin waxa jirtay aragti intii wax ii kala bixeen baa aan aaminsana oo ahayd deegaanka iyo dadka aan ku dhex noolahay markaas inay u baahnaayeen in ay wuxuun horumar ka sameeyaan sayniska waxa waxyaaba ugu waaweyn ee sayniska horumarka laga sameyn karin inay ahayd inay wadanku uu helo injineero fara badan si uu wuxuun talaaba uu sameeyo waxyaaba aan aaminsana waxa kamid ah maadaama dal burburay aan ka nimi ama aan ku noolayn xilligaas in waxyaabaha meel kasta oo dhismo oo wadanku uu u baahan yahay inay daba fadhiisanayso inuu helo injineero qof walba kolley marka uu secondary ka soo baxay balayno buu lahaa A iyo B iyo C oo kala horeeya badi aniga balaynadeeda waxa buuxinayay engineering maadaama aan aaminsanaa aragtida marka hore sheegay aragtiya balaynada aan marka fiiriyay inaan hirgeliyo hadii ay suurta gashana waxa kaalmaha hore kaga jiray inaan kuliyadan aan hadda ku dhex jiro aan barto marka waxyaaba iga saaciday waxa kamid ah aragtida aan aaminsanaa ma oran kara laakiin wax diyaarin ah oo aan soo helay ma aysan jirin maadaama aan la qabay duruufaha aan la qabay ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata geyiga Soomaaliyeed guud ahaantiis marka si gaar ah wax igu dhaliyay oo ah aan ka ahayn caqabadaha aan ku dhex noolaa markaas iyo waxyaabaha aan waajahayay ma aysan jirin maadaama aanan helin wax gacan qabasho oo buuran laakiin si aan ardayda iga dambaysa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ba aysan u waajin dhibaatooyinkan oo kaleeto waxaan door biday aragtida aan aaminsanahay ay ahayd dhismaha wadanku waxa loo daba fariisan karaa oo kaliya waa saynis dad bartay inaan anigu kamid noqdo dadka sayniska maanta wadanka dhinacan ugu jahin kara amaasiti horta ma santahay Cabdicasiis su'aasha maxaa ku dooratay inaad noqoto engineering su'aasha horta first markii aan ku jiray high schoolka ama elementaryga ama primaryga aad ayaa u xiisan jiray inaan noqdo engineer marka ra'yigayga aan engineer noqdo markaan ka soo baxay high schoolka waxaan fiiriyay ra'yigayga inaan ka dhibay riyadayda ahayd inaan engineer noqdo hadda se ay engineer noqon karaa
waxaan ku gaaray fursadii ayaa wadanka u muhiim u ah oo in ka baran karo aniguna waxaan barto wuxuu ku soo kordhin karaa way adag tahay horta waa runta walaalka Cabbaas sheegay way adag tahay in aad go'aan yeelato marka high school ka soo baxdo waayo 12 sano waxbarasho baan wadnay oo marqul aynan hadafka aynu lahayn aynan la taabanaynin ما شاء الله لكن لا هداي هويدا igu caawisay anigu departmentiga inaan doorto telecommunication engineering أنا كل احتواق engineering كان نقول لها waxyaabo badan oo iga sheegtay baahida uu wadanku u qabay marka telecommunication ka Soomaaliya marka loo eego Afrika dhul marka la siiyay Soomaaliya waxa meelaha ugu hooseeyeen kaga jirna telecommunication ka ra'yiga sababta say u dhalisay aan noqdo engineer telecommunication aad iyo aad u mahadsantihiin qaabka qurux badan ee su'aashaas aad uga jawaabteen waxaan filayaa in dhalinyaro badan oo hadda sida aad sheegteen ugu dawaqsan inay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan ayna u noqon doonto barnaamij ay ka bartaan cashiro muhiim ah sida hore u sheegteen ba su'aashii hore aad uga jawaabteen in ama culeysyo ah kuliyadan aad dooraneyseen ay adkeed inaad si sax ah adoo u diyaarsan aad dooratid marka maalinkaas iyo maanta farqiga u dhaxeeya bal inaan la wadaagtin ayaan jeclaalahay ku soo dhawaad Umar maalintii hore intaan ka aaminsanaa iyo hadda wax badan ayaa farq weyn ayaa u dhaxeeya inkasta hadafkeena aan gaari qaarna aan wali aan gaarin markii laga hadla for example waxyaabaha aan gaari xakameed macnaha network planning inaan qorsheeyo networking iyo network radio inaan qorsheeyo radio asagana muxuu ahaa qorsheynta radio asagana iyo waxyaabaha kale kamid ah inaan sameeyo waxa kamid ah BTS scan muxuu ahaa for example ateenadan iyo baranjido kale ateenada hoos yimaado kamid ayagana xariirayga BSc ayagana waxa jira waxyaabo muhiim point ugu muhiimsanaa jira wallahi switching systemka oo mobilka tan si fasira waxa ahaa meelaha xarumaha dhexe muxuu ahaa mobilka oo kala wareegan for example hadda telefoon marka registraynayso waxa laga qaadaa fara inda laga qaadaa qaybta waxa qaabilsan waxa Allah waa home location registerka waxa waa home qaybti badan leedahay oo home location register Allah oo kuba for example markii ay tahay kaliya hormuud kaliya markii aad wacaysid for example oo wacaysid nation ayadan waxay tahay muxuu ahaa waxa la visitor location Allah idina hadii u baahan tahay in number oo sawac oo hormuud ah sawac number nation waxa ku lagan ka waxa fiirnay marka home location kaaga fiirnay haduu soo ku jirin waxa waa numberkan waa visitor waa number waxana shirkad kale waa visitor kaas fiirnaysa marka waxyaabo badan jiro oo muxuu ahaa oo intaan lagu soo koobi karno kamid ah waxyaabo aan ka faa'iiday bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan ka hadlo su'aashaan in yar iftiimiyo oo maxaa farq u dhaxeeya maalintii aad bilaabaysay iyo maanta oo aan ku jiro aan dhamaynayo oo ku jiro gabagabadii san hore u sheegay baan hadalkayga hore waxaan arday jaamacadii wadanka jaamacad kamid ah soo yar dhigtay oo laba semester soo arkay marka taa waxa la oran karaa waxaan qof wax muxuu ahay compare ama isbarbardhig samayn kara oo wadankii halkan kala shayga ugu muhiimsanaa muxuu ahay wadankii markan ka yimaanayay iyo waxyaabihii igu dhaliyeen jaamacadii wadanka aan ka soo bedesho aan halkan u soo bedesho wax kamid ah faculty-ga aan dhigano ama faculty-ga aan muxuu ahay ku jiro in ku guda jiro waa faculty muxuu ahay u badan tahay in qofku boqolkiiba 60 inuu laabkiisa helo oo marka uu xisadii soo qaato iyadoo theory laabkiina inuu qaato ay muhiim tahay si uu fahankiisa iyo muxuu ahay hadhow shaqadii uu si fudud muxuu ahay u helo taas marka waxay sababtay dadku inay ognahay jaamacadii wadanka aynu ka nimid shayga ugu muhiimsan ama shayga muxuu ahay dhibaatada ugu weyn ee haysta ardayda engineering-ka waliba faculty-ga aan dhigto waxa kamid ah laabab baan jirin jaamacadii wadanka kaasina waa qodobkii ugu muhiimsanaaye sababayna aan ka soo hayaamay halkan imaado kadibna aan jaamacadan kusoo biiray markaan dhigtay Dhaka International University marka hadii aan ka hadlo isbedel dhacay inta aan soo bedeshay waxa kamid ah jaamacadan aan dhigto waxa jira koorsyo badan oo laabna le muxuu ahay baakina le theory-na le oo xisadii marka theory qaato waxa laga xisad lamid muxuu ahay laab ku qaato oo casharkii aad theory ku qaatay isagoo laab oo kale aad qaato waxyaabaha ugu laag badan waxa kamid ah rule aan ku soo dhigan jiray secondary-gi iyo isla saacadina maxaa maleynaya semester 2 rule aan oo electrical ku aan leeyahay oo mislow oo the secondary-ga lagu jaamacada lagu oo wuxuu ka sheekeeyaa in muxuu ahay voltage-ka iyo current-igu inay wada kordhaan ilaa secondary-gi la jaamacada waan maqli jirin laakiin shayga marka halkan yimid
markaan qaadanay xisada aanay circuit-ka ku qaadanay oo kale de laabkana la geeyay wixii baa la muxuu la cabiray voltage-ki baa la kordhiyay marka voltage-ki la kordhinayay halkana waxa kordhisay muxuu ay current-gi baa kordhaya ama madaxa kordhaya dadabkii oo graph waxa weey waa straight way intaas aan soo dhiganay secondary ama jaamacad waxaan u haystay inuu hadal iyo sheeko xitaa waxa dhacaysa in marka rule-kiina xifdido taasna waa mushkiladda qofka engineer-ka inta badan inuu xifdiyo ama inuu wixii inuu apply gareeyo waana taas waa shayga ugu hooseeya ama ugu yaray aan faa'iiday marka la eego muxuu ay waxyaabo badan aan arkay san hore sheegay in waxaan ku jiraa aanay jaamacadda waan si muxuu ay waxaan ku jiraa gabagabadii de course badan baa jiro muxuu ay aan dhigano oo haday tahay electrical haday tahay muxuu ay electronics lama wado ma oran karo muxuu ay 100% labada course labada faculty ee isku jira aan dhigto 100% waan faa'iido oo intii aan doonayay waan ka helay lama oran karo at least waxa la oran karo 60% faham guud oo labada muxuu ay course u dhaxeeya oo muxuu ay labada faculty ama labada department muxuu ay waan ka fahmay oo course-da ugu muhiimsan oo dhan insha Allah muxuu ay si fiican ba muxuu ay ayaan noogu dhigay marka waxaan oran karaa isbedel weyn oo dhinaca nolosha oo dhinaca aqoonta ayaa muxuu ay ayaa inta aan soo gudbay muxuu ay ayaan dareemaya marka aad iyo aad mahadsantiin su'aashan maxaa maanta iyo shalay farqiga ku dhaxeeya marka banaanka joogtay kuliyadan iyo marka gudaha ku jirtay oo kuliyadan dhex gashay xaqiiqatan horta halkaas ka cadahayba qofku goorta uu wax banaanka joogo iyo marka uu gudaha soo galo farqi aad weyn baa u dhaxeeya maalintii aan kuliyadan jeclaa ama aan rajeynay inaan doorto just waxa aan wax ku base gareynay waxa ahayd rabitaan aan anigu leeyahay kaliya iyo waxyaabo aan tawaqqucayo laga yaabo inay suurtagal noqon karaan ama ay hadhow isbedeli karaan laakiin markaan gudaheeda soo galo oo aan kuliyada dhaximi wax badan baa isbedelay aqoon ahaan kor baan u kacay oo wixii aan rabay markii hore inaan barto aan jeclaa hadda qof bartay baan ahay ama ku shaqeyn kara sidoo kale to waxyaabo fara badan laga yaabo markaan banaanka joogay inaan iska sahlanayay markaan gudaha imi waxa laga yaabaa inay challenges ku isbedeleen marka waxaad noqonaysaa xaqiiqatan qof de wixii ku dhex jira oo maanta wax cusub soo saari kara wixii ku shaqeyn kara wixii laga weydiiyay ka jawaabi kara iyo shalay oo ahayd kaliya qof jacayl u waayeen wax ku base gareynay iyo rabitaankiisa isaga intaas kaga baxay markii hore aan dooranayay watiigu adkeed yani doorashadiisa fakalkan iyo waxa ka aaminsanaa ma jireen caqabad labaad oo kale aniga hortaagnayd oo fakalkan markaan deegaan ahaan Soomaalihan u eegno ma baran karaan habluhu injineer ahaan habluhu ma baran karaan oo caqabada sanaamsana hada fakalkan dhex gasho yani aan kugu adkaan socdo inaan ahaan inaad barato fakalkan number 1 waxa sheegayna inan kasta baran karto fakalkan engineering ku nooc u yahay inan kasta way baran kartaa dadaalku ardayga ayuu ku xiran yahay maanta isku mid meeyo maanta waxa aaminsanayeen inay baran karto waxaan kala aaminsanayay maanta inaan ahay engineer buuxa waayo waan ka galay heerkii labaad waxbarashada ayaan ka dhamaystay oo master degree yahay inaan maxaamsano kale maanta inaan qaban karo shaqo kasta oo engineeringka telecommunicationka maanta ka dhiga wadankii oo la iga diro su'aasha ku xigta oo ina weydiinayo waxa waaye qofka markuu ka soo baxayo dugsiga sare waxaan ognahay qofku wuxuu soo qaataa maadooyin fara badan sida maadooyinka afarta maadooyin scientific ah waa maadooyinka ugu muhiimsan marka dugsiga sare la hadlayo ma jiraan marka maadooyin laga rabo qofka baranaya electrical and electronic engineering ama electronic telecommunication engineering maadooyin laga rabo qofkaas inuu aad ugu wanaagsan yahay ma jiraan waxaan ka bilaabayaa Umar bismillaah markaan ku bilaabo marka hore waajibta maadooyin badan oo aad oo xil macnaha in la faro ina xoog la saaro waxa laakiin ugu muhiimsan waa physics iyo xisaabta si xisaabta aad ugu muhiimsan physics sidoo kale marka taas oo baahan bismillaahir rahmaanir rahiim jawaabtiiba waxa bixiyay ninka Umar bixiyay oo science ku basal sheegay waxa weey waa afar course weey marka laba course ama laba maado ayaa toos u xiriira muxuu ay engineering codon khaasatan faculty kan dhigano muxuu ay telebliga oo physics iyo mathematics qofku labada maadaha hadii uu ku wanaagsan yahay oo muxuu ay uu xisaabtiina uu fahansan yahay physics laftigiisina uu ku fiican yahay waxa la oran karo qofkaas oo kale uu baran karayaa oo uu sii wadi karayaa inuu muxuu ay uu barto physics kuna waa waliba waxa oran lahaa physics waa number 1 noqdo weey hay'ad courseska aanay lagu dhigto majority-ga electronics iyo electrical waxa uu base waa ama foundation waa muxuu ay waa physics-ka marka qofka hadii uu si guud labada maado u fiican yahay uu muxuu ay
waan qofku labada maado ku fiicnaado haddii uu doonayo inuu faculty-gan uu kusoo biiro sida saaxiibada iga horeeya ay sheegeen kuliyad walba waxbaa gundhig u ah oo maadooyin muhiima baa jira weliba qofku goorta uu ka soo baxayo marxalad oo usoo gudbayo marxalad kaleeto waxaa muhiim ah wax inay jiraan wax isku xidhaya bridge la isku xidhi kara labada marxaladood ee u kala gudbayo markii aynu ku noqono syllabuska laga isticmaalo gudaha dalka maadooyinka saaxiibada ay sheegeen mathska iyo physicsku muhiim bay u yihiin engineering waliba qaybtiisan aynu hadda ka hadlayno aad bay muhiim ugu yihiin si guud maadooyinka guud science-kuna waa aad bay muhiim u yihiin laakiin ta kale jirta waxay tahay in qofku kaliya uusan ku base garayn karin wax inuu ku fiican yahay maadooyinkaas waxa laga yaabaa qofku inay jireen caqabado hortaagan xilliga uu dhiganayay secondary-giisa oo laga yaabo inuusan helin macallimiin u diyaarsan inay maadooyinkan si fiican ay ugu gudbiyaan laakiin haddii uu rabitaan uu jiro ah inuu isagu ka soo bixi karo kuliyadan si kasta oo maadooyinka ugu liitay uu iskabi karaa gadaal wuuna ku biiri karaa muhiimadda ugu weyn waxa weeye qofka rabitaankiisa bismillaah sida asxaabta intooda badan soo wada sheegtay ardayga waxaa muhiim ah inuu physics iyo maths yaqaano weliba haddii uu maths yaqaano maths waa furaha ku furaysa physics-ka iyaduna hadduu ardaygu maths ku wacay physics-kana uu ku fiicnaan karaa meeshaasaan kaga baxayaan aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waa muhiim in oo qofku maadooyinkaas asxaabtu ay ka hadleen uu faham basic uu ka haysto su-aasha oo ku xigta oo aan weydiinayo waxaa waaye qofku maruu ka soo baxo dugsiga sare wuxuu ku soo biirayaa uu ku soo biiro department-ka ama kuliyadan jaamacadda ka baratiin oo weliba qaasatan hadda labadan aan joogno ah markuu ku soo biiro waxaa jirta fiildiyo kala duwan meelo kala duwan koorsooyin fara badan oo la kulmaya jirta marka qofku markuu yahay telecom ama qofku markuu yahay triple E waxaa ma jiraan maadooyin kood u ah macnaha maadooyin oo hadduusan maadooyinkaas meel saarin ay ku adkaanayso inuu fahmo inta ka dambeysa macnaha ama ku ah aasaasi u ah hadda labadoodoo kale mase jiraan su-aasha inay raacso mase jiraan maado ay ka midaysan yihiin labadooda hadda course ay labadooda ka midaysan yihiin sida inay labadooda iskala xiriiraan oo course-kaas hadduu barto qofku labadan kuliyadoodba ay furo u helay ma jiraan macnaha maado course saas ah ma jiraa su-aashaas bismillah haddaan su-aashan aan sii yar faahfaahiyo koorsooyin waa jiraan certificate course waa jiraan oo koorsooyinka loo fudfudo macnaha oo laga maarmaan ah haddaa tahay arday telecom ah kuguma filna keliya waxa jaamacadda ka baratay waa inaad bannaanka ka dhigataa institute waa inaad ka dhigataa jaamacadaha koorsooyin kale laakiin marka hore aniga faculty-gayga waa electronic and telecommunication engineering labada sano ugu horeysa waxaa semester ugu dambeeya marka laga rabo inta kale electronic lagu dhigaa for example waa triple E-dana sidoo kale waa iska mid ah labada sano ugu horeysa waa basic waa la iska mid yahay kali laba sano daba loo kala duwan marka telecom-ka wuxuu aad u basic u yahay waa telecommunication network iyo maadooyinka signalka iyo digital processing-ka iyo waxa jira maadada la dhaho wireless advanced telecom markaan ka tago dhanka aan u gudbo koorsooyin waxaa jiro aad muhiim u ah jira xataa haddaadan muxuu ahaa jaamacadda aadan si fiican u haysan xataa for example aadan ka haysan CG fiican ama aadan fahansaneyn waa inaa institute ka dhistaa si professional ah qofka telecom waxa aad loo tixgeliyaa qofka markuu professional yahay qofka markuu academic caadi yahay iyo professionalka waxa si fiican loo tixgeliyaa professionalka waxa kamid ah koorsooyinkaas aad u muhiimsan waa VoIP waa xiriira voice of internet protocol waa waxa la isticmaalaa waa internet protocol waa wicitaankan oo adoo haysta qadka ku wici kartaa waxaa kaloo kamid ah Cisco networking oo wada ogsoontaan CCNA waa aad muhiim u tahay waxaa kaloo kamid ah networking and telecom iyadana aad muhiim ah waxaa kaloo kamid ah GSM laan shaqeynaysa GSM laan telecom shaqeynaysa waxaa kaloo kamid ah maadooyin badan soo takab waxaa kamid ah SDH waa synchronized digital hirings waxaa kaloo kamid ah muxuu ahaa Sonet marka basic muhiimdu waa on Cisco qofka hadduu Cisco si fiican u barta telecom-ka waa networking marka saasaan soo kooban insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aan su-aasha isku dayo aan soo koobo inkastoo ay su-aal aad mug weyn taho aad u culus tahay koorsada muhiimka inuu qofku muxuu ahay uu awoodda saaro ama course-ka faculty-ga aan barto waxaa ka mid ah faculty horta aan barto waxa weeye waa electrical iyo waxa weeye electronic marka
electronigu wuxuu raacaya isagu marna wuxuu raacaa electroniga marna wuxuu raacaa technology raacaya marka electroniga waxa jira ilaa 4 ilaa 6 course baa jira oo core soo qofku electricalka laga eegayo hadii ay noqoto aqoontiisa ama hadii ay noqoto inuu hadhow qofkii ku shaqeeyo oo ay tahay inuu awood saaro laba course waa foundation waa qofku markuu bilaabayo semesterka 2 oo kale ama 3 oo kale waa inuu fahansan yahay oo aad u fahansan yahay waa electric circuit 1 iyo electric circuit 2 labada course waa labada course foundationka ee la taxalluqo lima qaybta aanay electricalka labada qof haduu qof ka soo baxo labada course waana muhiim buu yahay inuu uu sii wado oo uu sii dhaxgalo waxa ku xigi doona machiniski oo machine 1 noqonayo machine 2 oo iyaguna aad u muhiim ah waxa kale oo ku sii xigaysa electric power oo isna saddex kala baxaya oo electric power wuxuu noqonayaa meeshii laga saarayay ama generationkii iyo transmissionkii gudbinayay iyo distributionkii marka saddex qaybood bal ma loo qaybinayaa powerkii intaasay ka sii bilaabmayaan koorsada kala muhiimka waa intaan ku soo koobi loo maasantii horta kulliyad kasta oo qofku baranayo waxaa jira waxyaabo gundhigu ah iyadoo wax kasta oo la baranaya marka hore ay muhiim yihiin maadaama short list la sameeyo jaamacad walba ay samayso oo ay jiraan maadooyin ay jaamacaduhu kala duwan yihiin iyo maadooyin ay common ka yihiin jaamacaddu dhammaan waxyaabaha ay syllabuska ku soo darto marka hore ay ugu tala gasho inuu ardaygu barto waa wax ay u arkayaan badi inay muhiim u yihiin ardayga noloshiisa inta uu ku dhex jiro electrical engineering maadooyinka laakiin aadka u muhiimka oo ay tahay qofku at least in wax macquul ah uu ka ogaado waxa kamid ah electrical motors oo kaleeto inuu qofku wax badan ka garanayo waxa kamid ah power system analysis and design inuu qofku wax badan ka garanayo waxa kamid ah power electrical inuu qofku wax badan ka garanayo sidoo kale VLSI inuu qofku in badan ay uga baxsan tahay oo wax fiican ka garanayo maadaama ay muhiim u tahay gundhiga kuliyadan sidoo kale qofku waxyaabo loo baahan yahay in wax badan ka barto waxa kamid ah microcontroller and microprocessor oo muhiim kulliyada inta uu ku shaqeynayo qofku waliba goorta uu qofku shaqadeeda dhex galo kulliyadan waxyaabaha aadka gundhiga u noqonaysa qasab ma ardaygu inuu markas isku mid ah ama isku si uu inuu wada yaqaano laakiin waxa muhiim ah in wax badan uga baxsan yihiin maadooyinkaas bismillaah horta ardayga maadooyinka laga rabo special ardayga electronic telecommunication engineering first ardayga electronic telecommunication way marka department electronic and telecommunication way electronic hadii ardayga waxa laga rabaa electrical circuit 1 electrical circuit 2 inta soo dhan garanayo si asxaabta kala sheegtay microprocessing ardayga special telecommunication qaybsigan waxa looga sii baahan yahay sida anay weyn ardaygu garanayo waa in ardaygu garanaya network troubleshooting-ka waa in ardaygu leeyahay xirfadaha router configuration inta kaga baxayaan su'aasha ku xigta waxay noqonaysaa qofka ka baxa electrical engineering ama qofka ka baxa telecommunication engineering wuxuu ku diyaari karaa master ama heerka labaad ee jaamacadda wuxuu ku sii wadi karaa ilaa PhD muxuu ku sii wadi karaa su'aashaasi noqonaysaa ku soo dhawaad bismillaah su'aasha haddaan gudaha u gala waxaan kala qaadayaa laba qayb horta markaa dhameysay waa electronic and telecommunication engineering waxa gudaha ugu jirta science waxa la wixii la tacalluq science wad ka diyaarin kartaa master ama electrical ama electronic caadi ama software engineering ma wixii science la tacalluq diyaarin kartaa ima hadaa haysid fildiga inaan ka baxo marraba ana for example masterkay waa fildiga kaliya waa telecom network ka diyaariyaan marka xitaa adigoo telecom ka sii diyaarinay waxa ka sii diyaarin kartaa ama microwave ama waxa ka diyaarin kartaa advanced wireless ama waxa ka diyaarin kartaa telecommunication network ama waxa ka diyaarin kartaa signal processing macnaha field koorsooyinkaadi koorsa ugu jecel dad isdheey kartaa diyaarin kartaa ka diyaarinaysaa qofku markuu yahay qof arday electrical san hore soo xusnayba waxa jirta core courses aad u muhiim ah kan waxaan oran karaa qofka electrical muxuu ay dhameeyay wuxuu ka diyaarin karaa oo u bannaan inuu maadooyinkii koorka ee muhiimka ah haddii shaqo noqoto haddii noqoto in imtixaanuhu hadhow ku wala standard caalamka ku galo kuwaas koorasada muhiimka ayuu master ka diyaarin karaa haddii tahay machiniski inuu noqdo qof kuwa takhasusku yahay machiniski howlahaas haddii noqonayso muxuu ay electric powerkii oo kale haddii warshadii sida dabka looga saaray generationkii oo dhowr course ay soo hosgelayaan oo switch gearkii oo kale basic mechanicalkii power plantkii aduu koorasada muhiimka oo dhan marka koorasada muhiimka oo dhan ee core courseska oo dhan
qofka master ahaan iyo ilaa PhD buu ka sii diyaarin karaa su-aashana qofku muxuu ka diyaarin karaa master markuu gabagabeeyo waxbarashadiisa digriga koowaad ee ahayd electrical or telecommunication engineering horta master markuu qofku marxaladda digriga ka soo gudbo koowaad oo digriga rabo inuu diyaariyo waa doorasho la mid ah markuu qofku ka soo gudbay secondarygiisa oo soo gudbay waxbarashadiisa digriga koowaad tan qofku sidii uu markii hore uu soo raacay waxyaabaha ku kalifay inuu tan oo kale doorto baa sidoo kale u saameynaya tan inuu doorto sidoo kale waxa jira qaybo engineering ah oo la mataana tan sida qofku inuu industrial engineering u wareego oo tan la leh xiriir aad u weyn sidoo kale qofku inuu software engineering u wareegi karo marka communication si fiican u barto qofku inuu power si gaar ah u takhasusi karo VLSI oo kaleeto marka way jiraan kuwa iyada la mataana oo baran karo qofku sidoo kale fieldigu ku dhex jiri kara doorashadiisuna waxay u sahli kartaa oo kale inuu fieldiga iskaga tago marka tani waa mid ku xiran sidoo marka hore qofka ugu xidhnayd isaga bay ku xidhantay wuxuu master ka diyaarin karaa ardayga electronic telecommunication engineering horta iminka ardaygu uga fududahay inuu doorasho yeesho waayo iminka fiilka electronic telecommunication badan baad kusoo dhex jirtay waa garanaysaa wax badan ayaa kaaga iftiimay ardaygu marka uu telecommunication engineer yahay electronic buu ka diyaarin karaa masterka electrical engineering ayuu bixi karaa ETE-giisa ayuu kusoo dhex jiri karaa ETE-giisa ayaa si kala baxaya doona telecommunicationka iyo wireless buu kasii diyaarin karaa fiber optic buu ka diyaarin karaa anything kastoo telecommunicationka la sii xiriira oo ka sidaarin karaa si walaalka Cabbaas sheegay ardaygu field engineering intuu ka soo baxay industrial science telecommunication electrical intuu soo dhaxbaxo kale industrial engineering ka diyaarin karaa mechanical uu soo bixi karaa hortaan ardayda mid baan kula talin lahaa ardayda faculty-gan dooranaya iyo ardayda Soomaaliyeed soo bilaabaya jaamacada feerastogu waxaan kula talin lahaa ardayga mastoli marka ardaydeena wadamadan shisheeye joogta marka aan fiirsato ardaydeena caqabasho badan ay kala kulmayaan oo kaaga waramayaan dhankii luqadda inuu ardaygu dhankii luqadda problem ku ahaado inuu ardaygu fakalkiigu baranayay faces badan oo problem kala kulmo markaan waxaan kula talin lahaa ardayga bachelorka mastoli wadankeeni waa lagu faculty-gan kamid ah anigu ku soo diyaariyay wadankan bachelorka ku soo diyaarsaday ardayda waxaan kula talin lahaa fakalka wadanka yaala ee uu ka helayo uu facilitieskisuna u fududahay ardayguna ku diyaariyo bachelorka wadankii marka ardaygu bachelorka wadanka ku diyaariyo wadan kale u soo baxo laba wax uu fududahay wixii uu baranayay conceptiga luqadiisa ayuu kaga dharagsan yahay waxa kale uu garanaya luqadii wax uga bilaabay inuu arday bachelorka soo baxo luqadii wax badan uu ka fahansan yahay oo taana iyadana dhutalo uu saamaxaysa inuu fududeeyo oo uu fududaato mastertiisa ama wixiisa kale wadanka uga soo baxay ardayga faculty-gan bilaabay isagana waxa kula tan la master faculty-ga marka semester 1 semester 2 wuxuu haana uu kuga adkaanaya ardayga master ardaydeena waxay ku noqotay way ka tagtaa oo arday walbo ardayga 90% ardaydeena way bilowdaa electrical engineering ama telecommunication engineering laakiin semesterska hore ayay kaga tagaan phases badan oo adeeg bulay electronics-ka ka soo horeeya maanta dhan electronic ba arkaysa maanta dhan signalist ba laga sheekeyn doona ardaygu maskaxdiisa waxay uu ku configuration kartaa laakiin waxa ku dadaalaysa ardaygu inuu dhabar adeegto waayo waxaan waa choice-kaagi waxa soo dooratay ayaad baran kartaa midda kale ardaydeena problemka labaad haysta waxa weeye saaxiibkii wuxuu bartay ayuu doonayay inuu diyaariyo saaxiibka hadaf buu leeyahay saaxiibka xal kulliyada way ka go'an tahay inuu barto wuu dhabar adeegaya laakiin adigu saaxiibka ayaa soo raacday oo kugu adkaan doonta waad ka hali doontaa deetana ardaygu waa kaalka ku joojiyay ha dooran saaxiibka wuxuu doortay saaxiibka haduu kuliyadan kaaga fiican yahay ID-giisa weydii ID ururi maamligu haduu la kaasho adigu baahiyaha wadanka ka muuqda u fiirso inta soo dhan ardaygu markuu fiirso kuliyadaadii qof wixii concept uu haysta bilaaban karana wada ahaan kartaa laakiin haduu walaalka kula soo hadlo oo ama saaxiibka kula waxa la bartay hore ka soo 90% ardaydeena ka baranayso qurbaha problemka haysta waxa weeye saaxiibkii ayuu la soo leexanay waxa fakal baan doonaya fakalkii ayuu admission-ka uga soo saaraya fakalkiisu ku daraya fakalka ardaygii isagoo wadan sheey jooga isagoo ogaad u doona family-ga problemka ka soo bixinayaan in koobkii laga soo daba wado ayuu ku dhex saaqidaya 90% waxaad ku dadaashay ardaygu marka aad baranayso fakalkan ama aad wadanka dibadeed u soo baxayso dibadeed wuxuu leeyahay dhibaatooyinkiisa wadan shisheeya timi dhulkaaga hooyad ka timi oo adkay marka oo adkayso lambar 1 waxa aad soo dooratay wata labaad waxa aad ugu doonayso baro ha baran waxa uu saaxiibka ku sheegayo ha baran waxa walaalka doonaya ama walaalka doonay waxa jira arday badan oo family-ga oranayaan waxa
waxaa baro waxa la engineering baro ayuu ka oranaysaa hooyo ama aabo ha hooyo aabo waa tacabkaaga inaan soo saaro oo adiga waxaa doonaysa inaan barto inaan ilmo meel ka soo baxo waan doonaya inaan noqdo laakiin haddii waxay hooyada kuwa aad dooni weydo aad baran weydo waxay noqonaysaa waxaad ku dhex saaqido waxaad adigu doonaysa baro ardayga engineerinka baran waxaan kula talinaysaa isaguna dhabar adeeg badan uu kaaga baahan engineerinka special hablaha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asxaabta igala soo qayb gashay barnaamijka Cumar Muqtaar Cabbaas iyo Naciimo waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen insha Allah barnaamijkana waa wadi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin